برلمانك وقررنا على مسار في قدوميها قدوم الحيانك إنك حفلة دودية ما تلقى شغل بعضي قد كسر قبل يا شباب إنه بريورتي السنين ما دام يجا بيش النوع العناية يسمى سوء الجبين أرد أقول ومسوا أقبل وكذا بعدين لا واحد تحته هو شان تكسرتي هو شان هذا واحد كسرتي متو لقى سوء جاي دمية الدورتي لو بيكذب أيانا هو شان هو المدينة حفلة القابلة عم قبله تيم كي هذا شقين تيم وقف وشقين وحنا هين هذا شقة وقت بير أيام ذاك علي ودريم كان واحد من وقت هرين أو قبله لكن واحد نفسه يقول ويدين أنا من هرين قبله ضد في حكي الدروس كان يقول له غلط مع ذا ضد بس كلام اللي كان يقول صور عين ولا كل ما أنا عندي بتشوفه مركا سيدا أو بس أيام ما هي هاي نقول لنا قبله حفلتي ونور دعوة marka intaas ayaa habayna hadalkayga ku soo koobo dhammaantiin waa mahadsantihiin waa boqolkiiba saan soo ajibteen oo maadsan sharafna waa tan iyo xabsida ilaahay kabana aadina ku dunya xasana wa fil aakhirati xasana wa qina cadaabana inaad adduunkan nasiibkiina ku qaadaan aakhirana aad ibaadeystaan khaasan in kula daqaan iyo wada jirkiin sharafta ku noolaataan waayo dhammaantiin meel baynu ka wada dhimay meel baynu ku wada soconaa wixii aabbayaashii sameeyaan baa idinkuna maanta meesha aad ka sii wadaanin midnimadaan ayaan isinkanani rajeedayaa ilaahay subxaana wa tacaalana haynugu anfaco saasaan anigu ilaahay ku rajeynayaa waxa khilaafka aan iska ilaaliya iscadeeca oo adeecu allah wa adeecu rasuul oo uluda minkum sidaasaan idin rajeynayaa iyo khayr iyo barako hadda ka hor waxaa dhacday nin baa islaamka haystay habeenkii buu khamri cabay aroortiina maxaa laga rabaa salaada subax inuu dadka tujiyo salaada subax waa laba ragcadood sagaal buu tujiyo sababta intuu dib u habeen marka ku yidhi maynin siyaadiyaa markaasi wuxuu ku yidhi ilaahay saakaba siyaadaan wadna walaadka kitaabka nabariya waxaan ku yidhi maxaa saas ugu sii khilaafka la diiday intaasoo dhan waxay ninka ugu daba tukanayeen khilaafka muslimiinta la diiday marka waxa weeye khilaafkiina ka ilaaliya waa wax dadka diidaadiya oo meesha la keenay marka waxaan idin rajeynayaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu khayr inuu barwaaqeeyo gudoomiyaha ku-xigeen kana waxaan u dardaarmayaa xabsida ilaahay iyo mas-uuliyaddiin ilaahay inaad qaataan kullukum raacin wa kullukum mas-uul an raaciyatihi gabdhaha culimada dhammaantood oo dhan waxaan kula salaameynaa gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka waxaan leenahay waxaad samayseen wax qurxoon oo loo baahan yahay oo macnaha dadku lagu daydo intaas oo dhammaan waa maanta jaaliyadda puntland halka ay isugu timi wax lagu farxo weeye waxaanu darinko anagu aanu daan walaashayna waxay ku taageeraynaa inaanu garab istaagno oo aan halkaa kaga harin haddii jaaliyadda meesha ay joogto meel ka fiican la siin lahaa sidii loo taageeri lahaa haddii saduuq loo samayn lahaa haddii macnaha aad iyo aad yani meesha laga sii qaadan lahaa maanta waxaa la sameeyey xafladda puntland laakiin waxaanu sugaynaa waxqabadka dambeeto maalin maalmaha ka mida inay timaado mashruucaas waxa ilow dad baad u maqan tihiine mashruuca waxa hirgeliyey jaaliyadda faransa ee puntland baanu sugaynaa maanta waa balow insha allahna waxa weeye waxaanu leenahay meel fiican baad gaarsiiseen meel fiicanna ka sii wada hadalku waqtigu waa goban yahay dadkuna waa badan yahay waxaan rabaa inaan intaa kusoo koobiyo waana salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi waxaan leenahay hor baa idin sugaysa gudoomiyaha la dardaarmaya gudoomiye sheekadaadu maaha baaris keliya farmaajo inaa budshidaan hala sabciyo fiiri farmaajo keliya maaha gobolaysigaan inaa waxaan rabnaa soo afjartid oo hal soomaali aad samaysid marka hamigaaga ha weynaadaan leena gudoomiye marka waxaan rabaa inaa idin sheego qof reer puntland waa jeclahay reer puntland waan jeclahay ha jiraan ha joogaan meel kastoo ay joogaan thank you very much aniga waxaan tegay gaalkacayo yaan tegay weligay ma arag gaalkacayo marka gaalkacayo waxaan u haystaa in la isdilaayo oo ammaanku xoya waa naxsana waa dhuumanaya marka fiiri waxaan galaa meel dhow familigayga ma wacin asxaabteyda ma wacin wiil baa waxaa idin airportka iga qaad meel idin jira hotelka u dejiye marka I think reer gaalkacab sicid laraara waa taqaana nin weliyo ku shaqeeyo yaa yaqaan laraara waa taqaana saanfilahay oo waxaa la tv-ga mu ah universal tv waa wariye sicid laraara habeen meel isku aragnay nin baa wacaayay marka waa uu lahaa markaas ma joogtaa warniga waa iska soo gashuuda magaalada waxaa dhacwa soo qowmatay fanaan kana maxaa noogu sheegi weysay bas xabadaan kuu samaynaynaa buulka
horta waxaan xaflad ku qabtay meesha la yiraahdo online hotel online yaasiin cabdisamed nin la yiraahdo yacquub faadumo gaashaan ninka walaga gudoomiyaha maslax uu jooga maalinkaas kabramaanka suudaani waa joogay guri noocaas ma garanta marka buntland deynteeda waxaan ku gudayaa xafladaheeda iyo meel kastoo ay joogaan inaan sihil taas waa ku madaxweyne faroole markii uu maamulka haystay baa waxay soo raadiyeen nin la yiraahdo maxamed saciid faroole ma aqaan hataa taqaana warri Australia waa injineer waxbuu bartay marka hees aan garoobay gaalkacay waxa uu qaado dhageysan jiray wuu jeclaa markuu qaylaa aad u jecel yahay maalinka dabaali warninkaan waa naqaanaa markaas waxaa xageen joogaa soo qabtay way joogaa markaas waa lii keenay wuxuu niyo wixii aan ka sheekaysan iska daa adeerkay waa madaxweyne yiri injineer baan ahay boqol hay-adood baan laakiin waxaan jeclaan lahaa barnaamijkaas aan qaatay inaan qaado waxaas oo dhinaafaan thank you very much puntland anigu waan taageeraa inkastoo maanta uu ficli keen aad iyo aad baan u taageeraa wuxuu yidhi ninka wuxuu yidhi loola jiraa khaliil sheekh maxamuud wuxuu yidhi haddii laba libaax libdhexmara way ku murantahay macmacaanka iyo kurusta waa la isku maagaayeen mise waxay heshiiyaan markii dhidiro muuqda halka waxaan uga socdaa kulley anigu waxaan ahay waxaan kasoo jeedaa gobollada sool sanaag iyo cayn wayna ka maqan yihiin puntland maalin gobolladii ugu horreeyey waxaan ku yidhi maamul ka qayb ahaa waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala in iyaguna aynu soo qaban doono aynu gaari doono ilaa iidankiis aad iyo aad baan u mahadsantihiin dhammaantiin meelaad joogtaanba waxaana leeyahay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka waxaan farayaa waa bulshada puntland waxaa loo baahanyaa in isu soo jiido waxaa loo baahanyaa meelay joogaan meelay iska waqayaan xafladan iyo xaflado kalena insha allahu tacaala waynu gudan doonaa hadduu ilahayna gaarsiiyo aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay xaqiiqatan waana xafladii ugu horreysay yurub aan kaga soo qayb galo puntland kuwo kalena waa ka qayb galaya muruq iyo maal wixii aan awoodana waan ku darsanaya ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay aad iyo aad ayaan ugu jecelahay gaar ahaan puntland waxaan leeyahay aloola maantana xafladda waxaan uga soo qayb galay waxa weeye inaan hambaliyo la qabto maxaan ku dhahday masaafkooda waxaan rajeynayaa inay noqdaan niman isku xira communitiga magaalada degan iyo waddanka waxaan rajeynayaa inay noqdaan niman communitiga isku xira oo wixii dhibaatooyinka magaalada ka dhacana ay xalliyaan odayaal u noqdaan soomaalida dhammaantood نظام الرفض marka qurdada jooga wuxuu iska dhibaato badan yahay geeriba timaada problemaadkaas ka yimaadan community waxaa ka qaban kara dadka wax ka qaban kara waxaan u baahanahay marka dad hawshaan haya oo isku xira communitiga waddanka oo wixii dhibaataan haya waxaan rajeynayaa iyagii guddiga magacaabi doonaan inay noqdaan niman magaalada dadka isku soo jiida guddiga waana la shaqeynay inta kaalinteeda noogu soo beermatay waxa keliya ka hadlaya waxa weeye in la isku xubnaado la iska warhayo ka dhalinyaro ahaanna waqtiyo gaara jiro oo la isku yimaado sidii samarka oo kale koob ramadaan baa jira la qabta gobol ahaan ama dadqana degmo ahaan marka insha allah gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka waa la shaqeyn doonaa marka aad iyo aad baa inii salaamaya kuna dheeraan mayo hadalka wasalaamu calaykum waraxmatullahi وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ما بعد وحق سلام يا صلاة شرفت له بدوينها هاي تنظيم وهو كسر على مسارك جالية بلدان وحضور سبحان سلام يا روحا وهو رسيل يا سلامها بدوبيها تغني أشكر iyo shariif ashar talaha daqali shariif halaha magacda xaqay iyo gudoomiye ku-xigeenka maxamuud bire waxa waaye laba nin oo sharaf leh weeye wadamada ku tumeeyay wanaag iyo khayr waxaan rajaynaynaa insha Allah inta aan ku tumeeyay in ka badan inay jaaliyada Puntland iyo jaaliyada Soomaaliyeed iyo intii Soomaaliya oo dhabcay foundation gobolka doonaa ka yimaadeen inuu noqdaan tusaale wanaagsan dadka waxaan nahay taageero waxaan noqon doonaa insha Allah taageero maaliyadeed taageero tusaale wax kasta insha Allah waa la garab istaagi doonaa hadii Ilaahay raawo inta ka bacdi xafladu aad bay macnaa waxa ka soo qayb galay dad badan oo sharaf leh waxaan rabnaa insha Allah
sida aynu ku bilaabanay sharafta iyo wanaagga inaynu ku dhammaato dadkana waxa weeye kollow dad badan dhalinyaro badan baa ka soo qayb galay inaynu isdhegaysano dadku waa la kala aftahansan yahay waa la kala hadal badiyaa nin walba si buu hadlayaa inaynu ku ixtiraamno qof kasta caqligiisa iyo garashadiisa aynu dhegaysano kollow meeshaan inaynu macsi iyo xumaan iyo ama qabyaalad iyo inay cid kaga sheekeyno uma imaan waxaynu kaliya u nimi inaynu danteena ku garanno laakiin haddana ninbaa waxaa laga hayaa mas baandaad kala haray wiil mas baandaad kala haray afku waa nuudayaa hadal buuleeyaa anna waa ku taagnaa wiil wax kastay ahaataba waa aqbalan waxba qadami maayaan xaalku waa isku fadhiyaa horta dhalinyarada sharafta leh iyo guddigii soo qabanqaabiyey iyo odayaasha iyo haweenka iyo dhammaan shacabka meesha fadhiya iyo ugaasyada iyo beeqaasiyaasha iyo suldaamada islaamada fadhiya dhammaan wayna salaamaya salaan dabadeed puntland iyo jaariyadda maanta halkan laga abaabulay markii horena waan ogaa haddana waa ku dhex jiraa deegaanka iyo dadka soomaaliyeed bayna ka mid yihiin reer puntland wixii siyaasada ma doonayna halka kaga hadlo maadaama labadino saxib ay ugu qaaliyen meesha ay fadhiyaan inaan carshacarshayo ma rabo laakiin suugaan yar oo tusaale yar maanse yar oo aan ku rabo tusaale qofka hadduu mas-uul yahay ama ha lagu dhiibo xaafad ama degma ha lagu dhiibo hadda waxaan u malaynayaa dhammaan shacabka deegaanada puntland ka yimi oo dhan waxaa mas-uulka ah cabdiqani shariif iyo maxamuud wile iyagaa macnaha madax u ah marka ujeedku ma aha kaliya qof markuu ra'iisul wasaare noqdo ama wasiir noqdo ama sandaladda hadalka sii bada waxay baqaynaa badgalo marka hadalka intaas ku ekeynaya ama hadal ku bilaabo insha Allah bilaha kariim waasaba waxay leedahay sahalow tixdii gabay maasadii tilmaanayd heeladaan ku taabgalay taariikhda ku lahaa batalaarin waayahan mana tegin hoggeedii inkastaanan tabar dhigin heesihii taxnaan jiray kalkacaylka tali jiray tafatirihii caashaqa inaan tiriyadaayo inaan tuuro moogtahay ka tallaabsado dhigo ha yeeshee wax kugu taaga saaxiib ilaa looma taagalo kor haddaan tabaaniyo tuhun caasha kugu dhicin kalkacayl ku taabanin waayuhu ku tababarin tiir iyo bar kugu xidhin kugu gejitaan adag iska taaha wuxuu tuur looma tiriyo sugan laba tiri halkeeday adigoo ku talagelin habeenku barkii tagaa wado looma tusa bal tijaabi garashada bal tixdaa ujeeddada hana taaba booga taxanaha waqtigayaan taariikhda baarbaan nin la tumay bal weydii wuxuu tabaya raacde qofku taray wuxuu taray ha ka dhigin barkubataan ninka tooyo foorsaday hala simin mid taag daran waqtigaa istarayo ninba meel ku tuuray hadday taadu wacan tahay nimay turuqday baa jira qof daahiyaa badan tataarkii allada hubay wuxuu maalmatooq iyo tabashlaha ku foofama in la taabay marki ku darsoo tukaanow tayamale adduunyadu waa tiir aboor una tari weeye faariba kol lagu taxaabo maruu baa tegaysaa hugaa gula ku tabaya intaan wiishka kula tegin tunka shacabka kursiga kafadooda hawtirta intaan ayda tusaysay inta taaska xigatiya taajirada ha qiimay inta tabar daraysiyo ha ku tuban dayaro ha ka tuurin haadaan ha isu qaadan taabici ha is oran waxbaa tahay sida tolashka ha u socon tallaabada ha bowsin fuqataa ka iyo rur sanaha u tiraanna ha tuboornaadmi maalinta la doorto qofka ama wasiir ha noqdo ama xildhibaan ha noqdo ama gudoomiye ha noqde maalinta la doortaa kugu dambaysa fayfka ugu dhaafay marka waxaan leeyahay hata koori aadmi fuqa sanaha u taagin hata koori aadmi wixii tagay hafaalayn waxa taagan ka adkow tii allana xusuusnow wardaaniga uqan waa saaxiibada si gaaran oo ugu hambalyanayaa xilka cid maanta idinka mudan oo bareerayaay oo aan meeshan ku arkaana ma jirto xilka labadiidaas oo wada salaamaya dhammaan rag iyo dumarka soo qayb galayaasha iyo waliba dadka soo diyaarshay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo khiyaarta dhammaan meesha isugu timi wax yar haddaan ka taabto arrintaan badan bay soo socotay maanta waxaan joognaa dalaastig iyo caleemasaarkii gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka sida muuqata waxaan u malaynayaa kulanka dambe oo aynu la yeelano oo xafladan oo kale ah waxaan ka rabno waxa weeye maxaa qabateen maanta hadday tahay waa idin caleema saaray su-aashaan berri dhahayno waxa weeye maxaad soo qabateen maxaa idin hagaagay maxaa gacanta noogu haysaan waana sida qofka loo dhiibo xilka loogu yaqaano inuu dadka isu keeno inuu la tashi badan sameeyo dadka waxgaradka la tashado in uu isticmaalo dee caqligii iyo maskaxdii awal lagu doontay oo lagu doortay oo dad bulshada loogala soo dhex baxay inuu aad u isticmaalo
inuu waqti badan geliyo naftiisa iyo maalkiisa iyo waqtigiisaba inuu geliyo waxa loo doortay oo uu mas'uuliyaddeeda qaaday waxaan ka sugaynaa bari ka maalin insha Allah saan sheegay hadda ma aha xaflad kaliya maxaa qabateen maxaa dalkii gaarsiiseen maxaa halka noogu haysaan maxaa dad isu keenteen Soomaaliyeed oo meeshan wada jooga maxaa dadka jaaliyada ku abtirsada oo dhaha jaaliyadaasaan nahay maxaad u qabateen maxaa had markaas gacanta ugu haysaan weeye hadda waxa sugayana way garanayaano hadday wanaajiyaan iyo hadday xumeeyaan baa wax meel ugu qoran insha Allah bari wanaag badan baan ka rajaynaynaa insha Allah aad iyo aad baan u mahadsantihiin guddiga soo qabanqaabiyay oo halka isugu kaaya keenay dhamaantaya iyo waqtiga ay galiyeen waxaan u maleynayaa waqti badan bay galiyeen iyagoo u baahan danahooda inay qabsadaan iskool aadaan shaqo aadaan waxyaalo badan oo la mid ah inay dantooda galiyeen danta guud inay uga weeciyeen oo ay waqti badan galiyeen insha Allah kuwa xilka hayana saasaan u rajaynaynaa iyo waliba gruubka la shaqeynayo oo tiimkooda ahba haddii alla idmo aad iyo aad baan u mahadsantihiin ka soo qaybgalayaasha dhalinyarada rag iyo dumarba leh iyo khiyaarta iyo waliba ganacsato iyo dhan walba leh lama wiil baan dooranay hadeertaan aan maqaano oo active ah oo dhalinyarada ka soo saarnay labada nin aan dooranay uma baahna oo kaliya inaan dhiraano gudoomiye xooggan baa inta noo shaqeeya waxa la shaqeynayo waa inaga shaqaduna waxay ka imaanaysaa inaga dadweynaha waxba ma qaban karaan haddii laba kasta oo inaga ka mid ah aynu iskhilaafsanahay taalo weeye midda ugu muhiimsan oo qofka koobaad aan weyn kala hadlo khilaaf oo meel walba yaala oo inaga reer Puntland kaliya aynu ku ekeen Soomaali weyn oo dhan khilaaf ka dhexeeya oo dadaasaday taas waa mid ah ilaahay ma aragtay taa waxaan leeyahay khilaafkii waxa ilaahay ka saaro مثل كانوا عارفين أن كتر سوت الأهم حيتاي لكن سبارس كتلته لأنه يرى أهم تنا كبابلش لا يرى أهم كتب كروي لك صوته وحمد ده ما يرى عصراتنا إلى هذا مركز لك صوته وحمد ده إن الناس كلهم وحمد ده هذا السنان وين نشوفه كلام كله qofka marka la dooranayo wiil waagee ku yaala meel bar ah oo cidla ah geedkaas marka wuxuu yahay haduu saddex leeyahay balaga shay baa la yiraahdaa haduu geedkaas qaniin leeyahay hadii uu geedkaas laama teelteel leeyahay qorraxda soo daayo hadii uu dagal colaadeed ku yaalo inta waxa la yiraahdaa marka waxa loo baahan yahay geedkaas inuu noqdo geed cid walba ku soo laabato marka waxaan rajaynayaa horta inaad geedkan qabtaan من الدليل كنا نضيع الدليل وحلا تسالتي عدو بتسالوتي كرامتنا شرفتنا دنيمتنا تسالوتي سامو البقوة قاضي سان يملك وصار مريسان حرجينا إلى النقطة ولا إلى هو قوة الدليل اللي بقول كهاي مثل كذا إن شاء الله بإذن الله كريم مرة جينا يومين مقرنا يساي عيب بنراك كمان وعشوب أنا وكتير ولا من ذا وقدر أياه وحن قدر أياه ما صهد كورة عن بيتنا نتريه دور جد بقول عليه حفلة السنة وكشيء ثاني ولا شيء فرق وحيلا الجبة تاي يقول لنا جد قريب مجيدا ماذا نبي قوي إنه قدمت وأنا جري كذي ويقول لك ويا لي قلت حي قدوتي وواحد قرع كسي سوقي اللي هو نستاكا أبي كان جاسري قاعديانو كادل هذا يتلقى في عنتها هوينا لك أشياء تهاي بالله أنا جيد أنا وعندي وقومية ويسدوا كهر لا من قومية دول قرأت هاي قرشنا دول مالات كل جيد تهاي وقعوا كولا تعال أبي كان داسري يعني أنا قادر هذا يتلقوا في عنتها هوينا لك أشياء أنت وإسلام جيد كيوي ما جيد كأسال يدين بيبي جيد كايرانية وترجع بعدين بيبتي إن شاء الله بإذن الله كريم تحسن الله هاي كوديادنا وابدين هذا واحد قد كودياد ولا تنا كتر كنيلو مهد عليهم ما بيصير إذا بعد ترى تسوق رقابي سير وحلي يوم بعد كل هذه يكون موسى كتر لسه موجا أمر هناك سنة خصوصا كل كودياد يا أنا اللي كتير هذا اللي يراهم كواس وما تري وخصوصا سنة باشا برجع وما تدري السلام عليكم ورحمة الله برفقت إلي سميع يبغى أنا كنا وإنا أنا كلام هنا waxaan kaloo aan rajeynayaa inaan maanta inta la isugu yimid aan looga tegin waxyaabo badan la qabto waxyaabo badan la bedelo
كلو رجينا إن شاء الله إلى دمركم وهوية مانتي وهوية بري يعني كل مدوين كيبان هاي so وأنا واحد من experience سينا يلا الأريا أما كنا في الأريا واي مانتي سوماليا نقطة إلوي هنقطة قبل بعض بيصير نيجي قبل قارتي أنا هاي هي more powerful وهايستام waxaan kaloo rajeynayaa in haddii ilaahay noo idmo oo ay noo noqoto caleemasaarka maanta ee ama uu noo dhammaado inaan ballaarino jaaliyadeena waxyaabo badan dalkii ku qabano ururo badan la sameeyo maxalliya kuwa dawliya waxaan rajeynayaa jaaliyaddu inay ku garab qabanayso taas diyaar baan u nahay dhallinyaradii baan nahay dad badan oo kale oo talooyin ama fikrado inay la siiyaan waxna way jiraan insha allah iyaguna waqtigooda way gaari doontaa waayo maanta dalka iyagu more than 20 years waxaa laga yaabaa isbedelo saa u badan inaysan ka dhicin so waxaan rajeynaynaa intii alkalaankeenna ah oo jaaliyadda France ahaan inaan sameyno waa in maanta wixii soo baxo badan oo maanta aan dalkeena u qabano ama dadkeena u qabano waxa ku magacaaban waa kulligeen ma ku magacaaban hal qof anigoo dhanba ku magacaaban so waxaan rajeynayaa intaasna inaan uga baxo hadalka salaabiyaa dhammaan لا أورط محله نوع عفمات طوارئ كان سوق كاني مهمة اللي هو أساسية وأنه هو استغنى وحيد ورنت مشات كمدة والسياسة أنا أود برئيس الشركة اللي هو ذيك الوهي حقنا أنا مركا وحملنا يا واحد بر رئيس الشركة ماله نيك أكتيفيتي يا أودها هي وين ودك يا ودك كجريا لكن وحاول رئيس الشركة ماله وما نستعين إنه يكحينا عن نقطة عن كل نقطة community عن نستعوا كنتي وادرين كتردوات دمات إلى هذا أنت كمان هنا ما كمان هنا حتى لو حن نرتمك ليش من دقيقة لينا نسكت ضيق ما قبلك إنه حوالي عبد الغني حديد أنا مو قدعت كاهن من هلا إنه بقول كيو بقول تاجرين لكن قيب كم إذا هدي عن الله إحنا ملينا هنا واحد كلنا بس يجوي إنه ما عندنا قدومي كحجان وقت كلامك كدي وسيت دونا إنك هاي من دونا أو ضدك سيود دونا هولها سيود دونا مين واحد أنت يرتها بلوجة هاي ناس يريح واحد لما قاعد دونا بدفلين ما عندنا كوس يجوجان حنو ملينا أساس لقى إن تدوي تدوي هدي جوجان قف كله وحبا قوم هاي أو لقيهم هاي هوش الساعة إلا بدلوا إنك ميت كميدا قيب كميدا أي سوق لان مشي ولا سوى حدي أرونا هاي sida daacada inaan ugu horgalno community-ga oo aanu muhiimadda ugu tan waxa weeye wasiir isku ogaana maanta haddii qof in ka mid ah uu geeriyoodo oo ognahay waxay taabataa familkiisa taabataa inta kala dalooda iska wadataa muhiimadda waxa weeye inay mas-uuliyadda cid lahaato oo qofkaas lagu duugo ka community ahaan oo anagu aan furino aan u istaagno يعني ترى فاميلي كليا أين هو تابوتو إن شاء الله لا يقبلنا أن نسكفره سدع على أن وضع شقينا أدبني السلام يا بعد السلام كل وحنا يعني هذا البضر هذا ما يسلي ما تجيله هذا الكي أنت بدي دول يري أنا كل هذا على لو سوتشي تمانتي أسوتشي إلى هاي أنا أبغى أنفعه كل وحنا شو بينتونا بالآن بدي أروح خلاص ما دعيا ولا إيمانيا لكن أنتي أنو أول ذي يوحي أنو قبان كرنا إن أنو قبان إن شاء الله بإذن الكريم لكن أنا شخصيا هذا يدوكنا لا شغال ودنا نجرب يستاجل حرنا قبان كرنا ويقع وذا حقوقيا إذا كان قرب إذا كان بعنا هاي إذا كانوا يدين شغلنا إذا كانوا واحد كلنا هاي وحنو بعنا تلدينا وحنو بعنا تسالينا وحنو بعنا مالكينا وحنو بعنا وقتنا وأنا كمان زدت سلا وقت جينا ما تلو يوسف وقتين وغير على تدبر إنها واسكلا هاي تدبر إن ما توي كبيوة هاي ولا هاي وقت كان صور تنادي أنا تورط ما بقول شيء كل ما تعلم الله مثل بعد لكل حبنا فلين بانكونا واقع دونا ما أنت أديلا إذا كديكو شريط تهرب وشيء رقاش دونا وحبنا يفلين تنقل دونا لكل إنت أنا وأنا كني عقلي جايك إن معناها وإحنا لا وذي كلام أنا وأنا يجين فيها أنا وأنا يجين معناها
marka puntland la yidhahdo dee waxaa ka jira wax la yidhahda 3.5 oo wax loo qaybsado laakiin de halkan 3.5 looma soo leexin karo lamana keeni karo waayo waxa weeyaan annagu dee siyaasiyiin ma nihin community baynu nahay waxaan u baahannahay inaan wax wada qabsanno waxaan u baahannahay inaan meydkeenna maanta haddii qofka laga dhintay inaynu aasan karno waxaan u baahannahay keenna xanuunsan inaynu caawin karno dayacnaad fara badan baa jirta dadka runtii ku nool baariisiya agagaarkeeda ama faransiiska reer puntland baa ugu badan baa la yidhahdaa haddana saasay tahay de meel waxaa la yidhaha ama ka muuqa ama ka maqnow muuqashadii runtii waxaad moodaa sidaynu u badan nahay iyo tayadeenu inaysan islahayn laakiin waxaan rajaynaynaa oo ku rajaynaynaa inaan wax badan insha allah ka bedeli doono annagana waxa weeye hadafkeedu waa wuxuu yahay inaanu ka tagno meel maamulle berri oo nalaga bedelo annagu marka hadda imanaynay wax dhisan umaanaan iman laakiin at least waxaan rajaynaynaa marka aan tegi doono wax dhisan oo maamul leh oo akoon leh oo meel leh inaanu ka tegi doono insha allah bidnilaahi كل هذا كده كل شيء دارين معي وحنا عليه وقت واسكت جبجبه إن شاء الله وحنرجينا إن حبنيه كل واقع قفتي عن حاضريه وحنشعر أي شيء جرب كده قصة الموضوع عبد الله محمد قفك الله عبد الخير أحمد حرسي قفك صدقات عباس محمود مجرع قفك أفراد ومختار حمري قفك صلاة روضي يوسف عثمان قفك اللهاد حمد عبد الله محمد قفك الضباط فرع علي محمد فرع كسوع بشير محمد نوح سيدنا قف ان شاء الله حرجينا الى نقدر نقول فلوتا وكمل نقدر جاريته ان شاء الله